Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo hooyadii u dardaarantay inuusan la saaxiibin ninka lagu magacaabo Abu19. Markaas ayuu wiilkii dhalinyarada ahaa ku dhahay hooyadii, sideen ku garanayaa ninka aad iiga digtay in aan la saaxiibo? Markaaba hooyadii wiilkeedii ku tiri, asiga ayaa isku kaa sheegi doono, wiilkaydiioo iska jar ninkaas. Muddo yar dabadeed waa dhimatay hooyadii. Wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu ka murugooday geerida hooyadii, wuxuuna go'aansaday inuu ka guuro deegaanka hooyadii ku geeriyootay. Wuxuuna iibiyey gurigii ay degganaayeen, wuxuuna ku iibsaday lacagtii uu ka helay guriga uu gaday rati iyo hub. Intii lacag ee soo hartayna waa uu sii qaatay, wuxuuna u guuray magaalo kale. Intii uu dariiqa sii socday ayuu la kulmay nin lugta ka jaban, wuxuuna ka soo degay ratigiisii si uu u caawiyo ninkaani dhaawacan ee dariiqa dhex fadhiya. Wuxuuna saaray ratigiisii. Intii ay sii socdeen waddada ayay bilaabeen inay wada sheekaystaan. Wuxuuna dhahay ninkii lugta ka jabnaa, aniga sidaani waxaan ku soo noqday dagaal shalay aaggaani ka dhacay, kooxdaydana way jabeen, anigana faraci dileh ayaan ku soo baxsaday, dhaawacaana wuu i soo gaaray. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ku dhahay ninkii lugta ka jabnaa, aniga hooyaday maalmo ka hor ayay geeriyootay, mar kastana waxay igu dardaarmi jirtay in aan la saaxiibin ninka lagu magacaabo Abu19. Ninkii lugta ka jabnaa ayaa ku dhahay wiilkii dhalinyarada ahaa, Abu19 waa aniga. Wiilkii ayaa ku qoslay hadalka ninka dhaawacan, ihtimaamna ma siinin. Waxayna tageen labadoodii ceel. Ninkii lugta jabnaa ayaa ka codsaday wiilkii dhalinyarada ahaa inuu ka soo dejiyo ratiga si uu biyo u cabo. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ku dhahay ninkii lugta ka jabnaa, iska saarnaaw ratiga dushiisa, aniga ayaa biyo ku siinaya. Wiilkii dhalinyarada ahaa intuu xerig ku xirtay luqunta ratiga ayuu ceelka galay, wuxuuna biyo ka soo buuxiyey wadaantii. Wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu si kidis u arkay xeriggii oo go'aya iyo asigoo ceelka guntiisa ku dhacaya. Ninkii dhaawacnaa Abu19 ayaa xerigga jaray, wiilkii dhalinyarada ahaana kaga tagay ceelka guntiisa. Markii la gaaray habeenkii ayuu wiilkii dhalinyarada ahaa maqlay laba nin oo jin ah oo ka sheekaysanaya gabar qurux badan oo la sixray, waxaana dhalay inanta la sixray nin boqor ah. Sheekadooda waxay ku sii dareen sida inantaasi sixran sixirka loogu furi karo. Subaxii ayaa ceelka waxaa yimid koox kolonyo ah oo safar ah, waxayna ceelkii ka soo saareen wiilkii dhalinyarada ahaa. Wiilkii ayaa si degdeg u aaday magaaladii ay ku nooleed gabadhii boqorka u dhalay ee sixirneed, wuxuuna ka saaray sixirkii, kadibna waa uu guursaday. 2 bilood kadib waxaa magaaladii soo galay ninkii Abu19 ahaa, laakiin Abu19 waa gara waayey wiilka dhalinyarada ah ee qaba inanta boqorka. Laakiin wiilkii ayaa Abu19 u sheegay inuu yahay wiilkii ceelka uu ku riday. Abu19 ayaa inta yaabay ku dhahay, wiilkii sideed ku noqotay nin hodan ah islamarkaana qaba inanta boqorka? Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ku jawaabay, waxaanu idil waxaa sabab u ahaa ceelkii aad igu riday. Abu19 ayaa u soo cararay dhankii ceelka, wuxuuna dhex galay ceelkii si uu u noqdo nin hodan ah. Markii la gaaray habeenkii ayaa waxaa yimid ceelka labadii nin ee jinniga ahaa oo ka caraysan gabarta boqorka caafimaadkeeda, waxayna istusiyeen inuu ceelkaani sabab u ahaa in ay bogsato inanta boqorka. Kadibna waxay go'aansadeen labadii nin ee jinniga ahaa in ay duugaan ceelkan. Abu19 waxaa lagu aasay ceelkii. Xikmadda ku jirta sheekadan ayaa ah in waalidka la adeeco, islamarkaana aan lala saaxiibin dadka xunxun ee ay kaaga digaan